xalay waxa qasriga boqortooyada lagu casuumay oo munaasabadii xalay dhacay ka mid ahay dad badan dadka ka qayb galayna waxa marti inoogu ahaa oo hadda studio la jooga xafladaasi ka qayb galay Cabdirashiid Dahabshiil maamulaha shirkadda Dahabshiil Group Cabdirashiid xafladaasi Buckingham ayaad xalay ka qayb gashay oo shalay soo bilaabatay maantana waa socotaa marka xafladii aad xalay tagtay ee qasriga boqorada bal waxaad nooga warantaa guud ahaan dabaaldegaasi iyo wixii xalay dhacay ismaan wad maasatay wala horta markii ugu horreysay xafladan maanta aanu ma tagin dhacday laakiin tii xalay waan ka qayb qaatay xalayna runtii ganacsato badan oo adduunka baa ka soo qayb qaatay dad wadaadaaba joogay siyaasiyiin dawladda Ingiriiska oo wasiiray ay kamid yihiin Ingiriiska joogay afhayeenka baarlamaanka Ingiriiska joogay ganacsato kale oo wadamada Afrika iyo kuwa la isku yiraahdo Commonwealth ka Ingiriisiga oo aan filayo inay tahay dhulkii boqortooyada Ingiriisku ay maamuli jirtay ayaa ka soo qayb qaatay aniga Cabdirashiid ahaan iyo dadka kale ee joogayna waxaanu aad iyo aad u xusnay boqoradu iyo qoyska boqortooyadu qaybta ka yihiin horumarka dhaqaalaha iyo horumarka shaqo abuuridda ee dhammaan dhalinyarada adduunka oo dhan ku nool ama noqoto wadanka la joogno UK ama Afrikaba waata Cabdirashiid qoyska boqorada soo hadal qaaday bal ka waran waxaad aragtay xalay xiriirka boqorada iyo kala dhaxeeyay qaaradda aad adigu dadkeedii kamid ahayd oo xalay meesha tagtay هو runtii boqortooyadu markii boqorada labaad Elizabeth ay aabaheed xilka kala wareegtay waqtiga Kenya joogtay oo ay markaa degdeg uga soo noqotay hablaheeda inaan kamid ahay magaalada Hargeysa tagtay 1982 dad badan oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed waxay siiyeen maxaa la yiraahdaa awards ama way hawsha qabteen wanaagsanaaday ay xuseen dhaqaalaha iyo horumarka runtii inankeeda Prince Charles wuxuu leeyahay hay'ad u gaar ah oo shaqo abuurka u sameeysa dad badan oo dhalinyaro oo dad badan Soomaaliyeed ay ku jiraan marka horumarka ganacsiga ay ka sameeyaan wadankan UK ee joogna maanta iyo Afrikaba runtii aad buu xoog leeyahay waayo waxay sharaf u tahay iyada inay nabadda xoojiso inay barwaaqada dhisto inay shaqo abuurka kordhiso taana dad badan oo Afrikaan ama Soomaali ah ayaa ka qayb qaatay anaga Dahabshiil hadaan nahayna aad baan ugu faraxsanahay wax walba oo horumar ah keenaya meel ay joogaanba waa tahay Cabdirashiid waa soo hadal qaaday arinta caawinta boqoradana aaday xagga naxariista caawinta uga hadashaa marka Soomaaliland abaaraha ka jira bal waxaad nooga warantaa wax caawina iyo wax la soo hadal qaaday maxaa isba wasaal sheegtay abaaro xun baa dhul badan oo Soomaaliya ka jir nasiib darro ah ilaahay uga baryayno in roobkii noo sii ballaariyo waxa kale oo runtii shirkadaha gaarka loo leeyahay ama Dahabshiil ay kamid yihiin qayb weyn ka qaataan arrimaha samafalka ama ha noqoto abaaraha soo dayr badan ka bixinay ama ha noqoto lacagta dibadda laga dirayo oo aan qiimo aad u gaar ah aan ugu dirro ama wixii abaaraha qabanay laga dhigo bilaash laga dhigo arrimahaas runtii boqoradu aad qayb weyn uga qaadatay dawladdeeda waad ogtahay lacag dhowr iyo 20 milyan baa dawladda Ingiriisku ku dhawaaqday dhawaan inay abaaraha ka jira geeska Afrika ay ka qayb qaadato waan rajaynayaa in abaartaas iyo qayb weyn dawladda ka sii qaadato dadka qurbaha jooga ay nagala qayb daawanayaan waxay qaban karayaan dadka ay qabtaan aad baa u mahadsantahay Cabdirashiid Dahabshiil